بسم الله الرحمن الرحيم walaalayaal waxaan waxyar ka qaadan doonaa insha allahu tacaala tusaale yar oo nagu saacidi karo inaan qur-aanka xifdino sidaad ogtihiinba walaalayaal allah subxaanahu watacaala qur-aanka marka uu soo dejiyey aayadaha samiyada ah ee isgalgalo hal meel laguma wada dhoobin ee waxaa lagu kala firaariyey qur-aanka dhexdiisa. sababta lagu kala firaariyey xigmad ilaahay u taalla waaye, laakiin annaga ina loo fududeeyey ayaad moodaa. maxaa yeelay haddii hal meel lagu wada dhoobo waxaa laga yaabaa inay kugu adkaato, ama maahana si kale haddii loo yidhaaho aayadaha ka hadlaayo naarta, ulaaika asxaabu naari hum fiiha khaaliduun, haddii kulligood la wada geeyo jilad khamiisaad, qofka qur-aanka korka soo bilaabay ee albaqra iyo alcimre iyo dhulkaas soo maraayo, qur-aankaas oo naarta ka hadlaya ma heli kariyo. muga hasigoon qur-aankaas soo gaarin haddii u dhinto wuxuu leeyahay anu qur-aankaas sooma gaarin oo maba helinba. si marka uusan u dhihin ma helin ayaa waxaa lagu kala firaariyey min albaqro ilaa iyo laga gaarayo jalaad khamiisaad meel kasta loo gelshay. kaamirada waa aragteen, muggi oo kaamiradu ay ku jirto masalan 200 ama 500 oo tilaabiyo ama 1000 tilaabiyo aan dhaho, kaamiradaa lagu qoray waxa uu leeyahay meeshaan kaamiraha ku jirto, haddana waa socotay mugay ka dhimantaa, haddana 300 ama 400 haddana kaamiraha ku jirto, haddana waa socotay mugaad u dhawaataa lagu leeyahay haddana kaamiraha ku jirto. muga intaas waxaa la rabaa inaadan ku qaldoomin oo aadan dhin hal mugay ii soo baxday waa waayey. meesha ay ka keeneen waa qur-aanka kariimka, meesha laga keenay aqligaas iyo maskaxdaas allah subxaanahu watacaala kalaamkiisa waaye. ilaahi subxaanahu watacaala kalaamkiisa hadda masalan markaad qur-aanka damooto aayadaha samida ah mid kastoo meelay ku jirtaa. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. البقرة وكيلي أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون 3 وكيلي. حتى لم يكن أولئك هم خير البرية ماينهم. إن الذين كفروا من الكتاب المشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. muga meel kasto waa ka heli, 3 waa ka heli, 4 waa ka heli. sidaas daraadeed ilaahay xigmadiisa ayay ka mid tahay samida in qur-aanka lagu dhex firaariyo. laakiin annaga ka xifdis ahaan inaan qur-aanka xifdino macno weyn ayay noo sameynay. macnaha inoo sameynay waxay tahay aayadii sami isku ah oo 4 ama 3 ka kooban hal xabaas amba 2 ayaa laga yaabaa inay gooni la tahay, inta kalena ay isku sii yihiin. tusaalehaan hadda jannaati cadnin aad ka bilaabanayso, jannaati aad ka bilaabanayso oo 2 ah, qur-aanka 2 jaw ayaa ku jirto. jannaati oo hoos dhig ah amba kasra aan dhahno, hoos dhig mugaan dhahno, qur-aanka waxaa ku jirto 2. mid waxay ku jirtaa suuratul kaahey, midna waxay ku jirtaa suuratu saad. labadaas bisin ayaad ka hele aayad ka bilaabato jannaati oo hoos dhig ah. inta kasoo hartoo dhan oo wada godan yihiin oo aayad ka bilaabato jannaato waa kulligood. inta kasoo hartoo dhan waa jannaato. muga halaha badan ha isku wareerin, adiga waxaad qaadataa inta yar kaliya qaado, halaha yar qaado, kuwa badan way soo baxayaan, shaqo kuma lihid. baabuuraad wadaa kaysanayaa soo socotaa, waxaad rabtaa inaad soo aado madiino, waxaa kuu soo baxay tabeello ay ku qoran tahay madiino, ceelasha biyaa, bakaaro, kaaraanbari, buulaxuubey, maxay intaasaa kuu soo baxday. intaasoo dhanba adiga shaqo kuma lihid. adiga waxaa damoosee jawiya madiino bisaa damoosee, madiino 25 aa ku qoran, maalan madiino 25 aad u qaaday ha ku qoran bis, waxaan kaloo dhan shaqo kuma lihid ade. muga adiga hadda waxaa damoosane jannaati oo aad ka bilaabato waa meeqo, waa 2. waxa kasoo haroo dhan waa godan yihiin. qaar waxaad ka helay waa igoo godan haddii alla kuu roon yahay aracad, igoo godan waxaad ka heli haddii allaba kuu roon yahay daahe, waxaad ka heli haddii alla kuu roon yahay ataa amrule, iyo mii kaloo aad ka heshaba. laga yaaba in xataa faadir ku jirto iyo mii kaloo aad ka hesho, walaas maya. muhiimaddu waxay tahay kale inaad qaadato 2 yar iyo tee yar, inay badan tahay inay yartaha, tee yar inay yartaha kuu fudud. muga waxaad qaadanaya jawiya jannaati qaadee bis oo 2daas ah.
haddana soo soco wa ulqiya saxaratu saajidiina fa ulqiya saxaratu saajidiina iyadoo fa ah iyo iyadoo wow ah qur-aanka way kusoo aroortay waxaa hataa arkee fa ulqiya saxaratu sujadana xataa arkee fa ulqiya saxaratu sujadan ayaa arkay xataa muga wa ulqiya saxaratu waa waaxidka iyadana waxay ku jirtaa miisaad amba acraaf wa ulqiya saxaratu oo wow ah inta kasoo hartoo dhan waa fa hadday laba yihiin hadday ka badan yihiin adigu raaso laakiin kaliya ha isku mashquulin waxaad kaliya isku mashquulisaa tan fudud kaliya qaada bis maxaa yeelay qur-aanku wuxuu leeyahay eku dareef waxaa la leeyahay ama maskax shoorin ama maskax gaadiidka markaa wadaysid waa inaad maskax ku wado haddii maskax aadan ku wadin ayadoo baabuur ku jirto marshalabo aad sheelareysay aad baabuurka 100 gaarsiiso waxaa kaa dhamaanaya shidaalki motorkuna kaa gubaha muga milyoogina waa wasaqaysa oo hawadina waa dish muga qur-aanku waa inaad maskax ku wadid maskaxda waxaad ku wadi kartaa mar kasto ku weer qaado wa ulqiya saxaratu waxaanu niri waa kaliyeed fa ulqiya saxaratu waxaa ku jirtaa waxaad ka heli haddii alla ku ron yahay al-shucra fa ulqiya saxaratu waxaad ka heli iyadana haddana daahee inay intaas kala yihiin aan umalayhaaba soo soco haddana wamaa kaana jawaaba famaa kaana jawaaba iyadoo wooba waxaad ka heli haddana acraaf inta kastoo hartoo dhan waa wada fa anna malqaaraa ku jiro ama axasiba naas aan dhahno inta artid adiga ay rabto ha naqato kaliya waxay tahay inaad qaadatid inta yar inta badan adiga ha ku mashquulin waxa badan shaqo kumelid adiga mar kastaba waxaad qaadanee midda kuu fudud oo yar waxa badan iska dhaaf way soo baxee waayo haddaan aniga aan ku ilaaho gurigan waxaad ka furtaa cabdullaahi bis haddaan ku ilaah macnaheeda waxaan ka wadaa maxamuud hadduu imaad ha ka furin hadduu cabdi imaad ha ka furin haddii xaliima timaad ha ka furin haddii saciida timaad ha ka furin waxaad tidhahdaba gurigan waxaad ka furtaa cabdullaahi bis aan ku iri waa dhammaatay qof kale ood ka furi karto ma jirto qof karto oo kaloo yimaado ood ka furi karto gurigan ma jirtaan ku iri macnaa ay ka dhigantaha muga markasta waxaad qaadanee midda kuu fudud waxa badan faraha ka qaada ku mashquulin waxa kale ayaga imaanayo mar kasto waxa fudud kaliya qaado hada billahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi